Allah u naxariistay waxaa barqanimadii saakay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu dilay Sakariye Siciid Salaad oo ka mid ahaa dhalinyarada haldoorka ee gobolka Mudug. Sakariye oo ahaa madaxii arrimaha bulshada iyo barakacayaasha ee magaalada Gaalkacyo ayaa xilliga dilkiisa u dhacayay waxa uu ku sugnaa mid ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee magaalada Gaalkacyo. Ehelada Sakariye oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in dilka Sakariye uu la xiriiro aana qabiil. Sakariye ayaa lagu xasuusan doonaa kaalintii wanaagsaneyd uu ku lahaa gobolka iyo shaqadii uu u hayay bulshadiisa inta tabarta yar. Aan dib idin xasuusiyo maalmo ka hor barnaamij uu igala qayb galay Sakariye isagoo bulshadiisa kula dardaarmaya sida tan. Magacaygu waa Sakariye Siciid, dowladda saxafiiska arrimaha bulshada aan ka tirsanahay. Dowladda hoose roolkeedu waxa weeyaan in mataqaanaa ay ilaaliso nadaafadda iyo deegaanka iyo fayadhowrka inta roobku da'in ka hor oo ay meelaha mataqaanaa public ah oo qashka yaallo kale inay ka qaado si hadda ay sameysaba ka bacdina waxa weeyaan roob markuu da'o meelaha biyo ku soo haraan haddii ay waqti dheer jiraan inay chlorine iyo ku darto ama haddii ay heli karto si sameysaba inay booyado u keento oo ay biyaha meesha ka dhuuqdo. Bulshadana ayada ayaa biyaha inta badan isku celisa oo waxay sameysaa wadooyinka biyo mari lahaayeen ama meel biyo gali lahaayeen bay guriga ka dhisteen. Ka bacdina reer walba gurigiisa waxa hor dhigtay mataqaanaa loor ciid ama loor dhagaxa. Ka bacdi biyihii meel ay aadaan ma laha meel kasta isku imaanayaan. Taasna waxaa dhihi lahaa bulshada iska ilaaliso oo ay guri walba iyo deegaan walba iyo meel walba hadii la dhaho biyaha laga qaado dhibaato noqonaysa, laakiin meel gaar ah hadii lagu yaqaano way fududahay isla markiiba in laga hortago ama isla markiiba in mataqaanaa laga jawaabo. Laakiin Gaalkacyona soo ognahay waxa weeyaan biyo waa fadhistaan. Qof kasta wuxuu leeyahay dhulka inta asaga sabar looga ugu qoran inta kale, laakiin bulshada meesha ama xaafadda ama deegaanka degmada Gaalkacyo baa iska leh. Dowladda hoosaana wakiilka ayadana rabaa in mataqaanaa hadii biyo mari lahaayeen hadii dowladda soo in biyo ka saarto magaalada biyo ka saaro sameeyo meel la mariyo drainage-kii ama meesha biyaha la mariyay way aad bay u adagtahay. Waxna qorsa wadada bartakeeda in la mariyo taas waxa keenaya wadadii iyo gurigii way saarayeen. Marka insha Allah bulshada wacyigelintaas ku wadnaa oo u sheegina hadda ka bacdan sharciga uu shaqeyn doona insha Allah. Waa karti intaad iga fogaan waxaad ku celcelisay in sharciga hadii markaas ay noqoto in la tigsadaba ay dhacayso oo dadkii inaysan u hoggaansameyn oo dad badan ay xirmayaan. Haddaba soo inaad wacyigelinta aad sheegtay idinku aad bilowdaan ma ahayn oo bulshada ku wacyigelisaan in waxaan ay ahayn wax sax ah. Raxiim haddana sidoo ku sheegay waxaan ku yiraahdo wacyigelinta waa wadnaa oo u sheegnaa qofka laakiin ma wada gaarsiisna anaguna ma wada gaari karno hadda isla markiiba emergency aan kuma gaari karno, laakiin inta waa loo sheegay qofka markii sabar Cabdinaas Sheekay warbaahinta Daljir Gaalkacyo.